war degdeg oo hadda soo dhacay wasiir madaxaana furan oo guul la wada sii ogaa ka gaaray doorashadii hoggaanka golaha shacabka dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isla maanta ku xadgudubtay dastuurkii dowladda federaalka Soomaaliya ee ay dhawaan ansixiyeen haddaba soo dhawaada qodobo waaweyn ayaan ku dul istaagi doonaa barnaamijkeenan laagsaar la wadaag saaxiibadaada kale oo sheer dheh ka mid noqon saaxiibadeenna oo ku soo biir barteena bulshada SBTV mahadsanida ma doonaysaa inaad lacag ka samayso gurigaaga aqalkaaga ama qolkaaga adigoo ka kireynaya safarlayda iska diiwaangeli maanta jiranihubglobal.com noqo martigeliye oo bilow inaad ka samaysid lacag maanta waxaa guul horey loo sii wada ogaa gaaray Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac horeyna uu ahaa wasiirkii wasaaradda dekedaha isla markaana sidoo kale ahaa xildhibaan Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac madaxaana furan gacanta midig ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo mid ka mid ah foolaadka xukuumadda dan qaran ee ra'iisul wasaare Xamse ayaa loo doortay in uu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka ee waqtigiisu kal hore dhamaaday balse muddo xileed hal sano ah uu ugu darayo dastuurka cusub sida la sheegay Cabdulqaadir ayaa waxa uu tanaasulay inta badan raggii ay isku dhariga ahaayeen ay ka soo wada jeedeen beelaha la isku yiraahdo Digil iyo Mirfle kuwaasoo qaarkood ugu tanaasulay lacago waali ah oo ay qaateen halka kuwa kalena heshiisyo siyaasadeed oo hoose ay wada gaareen maalmihii u dambeeyay waxaa la sii wada saadaalinaya guusha Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac in uu noqonayo gudoomiyaha bedelaya Aadan Maxamed Nuur Madoobe Cabdulqaadir waxaa horey loogu eedeeyay inuu si xoog ku soo qaatay kursigii golaha shacabka ee beeshiisa kaasoo uu horey ugu fadhiyay shakhsi kale oo ay isku qoonda ahaayeen walow mar dambe la arkay iyagoo isgacan qaadaya laabtan isgelinaya haddaba guusha Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac dhowr qodob ayaa lagu dul istaagay maxay ka bedeli kartaa golaha shacabka maxayse tahay ajandaha filla Soomaaliya ee hadda ee ku aadan in Cabdulqaadir uu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka muxuu ku soo kordhin karaa Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac waa mid ka mid ah foolaadka madaxtooyada filla Soomaaliya sida weyn ugu tashato waana saaxiibka dhow ee dowladda Turkiga waxaana la sheegaa in uu qayb ka yahay isbedelada waaweyn ee dalka ka dhacaya iyo sidoo kale horumarinada iyo saameynta lixaad kale ee ay dowladda Turkiga maalinta ka dambaysa ku yeelanayso gudaha dalka in loo doorto golaha shacabka wax badan kama tari doonto xaaladda siyaasadeed ee hadda jahawareerka ah ee ka taagan Soomaaliya xaaladahan kala guurka wax badan kuma soo kordhin karo filla Soomaaliya balse waxaa la saadaalinayaa in uu saameyn xoogan iyo galaangal baaxad leh uu ku leeyahay dowladda Turkiga wax badan oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayana uu ka gadi karo waana tallaabada ugu weyn ee hadda Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac madaxaana loogu ansixiyay rabitaankiisii ahaa inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka sidoo kale dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn loogu eedeynayaa in ay jibiyeen laba qodob oo waaweyn dastuurkii ay iyaga gacantooda ku ansaxsadeen isla markaasina halka sano ee dheeraadka ah ay ka isticmaalayaan qodobka ugu horeeya waa in maanta golaha shacabka ay fadhiyeen rag badan oo wasiirro iyo xildhibaano isku ah kuwaas oo horey xukuumadda dan qaran ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ay u fartay in ay kala doortaan in ay kursiga xildhibaannimo sii haystaan oo ay ka tanaasulaan kursiga wasiirnimo ama kursigooda wasiirnimo ay u haraan oo ay xildhibaannimada ka tanaasulaan ma jirin tan iyo maalintaasi oo ay ka soo wareegatay in ku dhow 3 bilood qof ka tanaasulay kursigiisa xildhibaannimo ama midkii wasiirnimo mid kastaana waxa uu isku haystay labadiisa kursi arrinta la yaab kale waa in Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka ee la doortay in isaga oo ah wasiirka dekedaha sidoo kalena ah xildhibaan uusan marnaba ka tanaasulin in midkood uu ka dhaqaaqo kursiga wasiirnimo ama midka xildhibaannimo sida uu dhigayo dastuurka cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhawaan ansixiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ku wargeliyay dhammaan xukuumaddiisa ragga ku jira ee wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlaha ahba qodobka labaad ayaa in wasiir Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo hadda ah gudoomiyaha baarlamaanka in isagoo aanan iska casilin xilkii wasiirnimo isla markaasna xildhibaan kaliya aanan ahayn uusan isa soo sharaxin kursiga golaha shacabka balse isaga oo kursigiisii wasiirnimo dusha ku watay uu isa soo sharaxay in uu qabto kursiga gudoomiyaha golaha shacabka maalina iskama casilin xilkaasi sida uu dhigayo dastuurka qofka mar walba uu xil kale oo ka weyn wasiirnimo ama xildhibaannimo uu isu sharaxayo waa inuu ka tanaasulaa ama ka tagaa xilalka kale balse Cabdulqaadir waxa uu qaaday dhab ka duwan midaasi taas ayaana loo sahminayaa dhaqan la'aanta dastuurka cusub ee dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay dhameystirtay mucaaradka ayaana intiisa badan ku doodo qodobo waaweyn oo dhanka madaxtooyada mararka qaarkii looga saxan yahay waana in filla Soomaaliya aysan inta badan ku dhaqmin
dastuurka iyaga ay xariiqdeen islamarkaana ay ansaxsadeen marka laga reebo muddo kordhinta halka sano ah ee uu qorayo dastuurka waana ku dhaqanka halka sano oo keliya inta kale ee ka soo harta waxa aad mooddaa in filla Soomaaliya aysan shaqo iyo shuqul toona ku lahayn xildhibaano badan oo horey uga tanaasulay kursigooda xildhibaannimo ayaa maanta lagu arkay golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya taasi oo dhinac u riixaysa in ku dhaqanka dastuurka uusan Soomaaliya ka ahayn wax culus isla mar ahaantaasina xilli walba dhinaca kale loo tuuri karo xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa aad u cakiran iyada oo weli la isku mari la'yahay nooca doorasho ee uu dalku u jihaysanayo walow dhinacyada mucaaradka iyo muxaafidka ay isku raacsan yihiin in doorashada la aadaya ay noqoto mid dadweyne balse hanaankii iyo qaabkii loo maarayn lahaa doorashadaasi ayaa weli muran badan uu ka taagan yahay beesha caalamkana si weyn ayay ugu jahawareersan tahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee maalinba maalinta ka dambaysa kulleetiga isku dheggan mucaaradka si weyn ayay kaga hor yimaadeen doorashada lagu doortay madaxaana furan balse filla Soomaaliya sidoo kale waa ay taageertay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo dhinacooda loo xaglinayo haddaba wax walba ka soo kordha xaaladda guud ee dalka halkan ayaan si joogto ah idinkula soo wadaagi doonaa